Britain iyo Boris barbaristaag bay u ballan qaadeen Sweden dawlad iyo shacab oo wada jira. Cabsidu waa Putin iyo maamulkiisa. Culays amni ayay indhaweydba dalalka kan ku yaala gobolka si gaara Sweden iyo sidoo kale Finland ay dareemayeen tan iyo markii jaalkooda dharaar cad lagu duulay. Duniduna aysan weli tallaabo muuqato oo maangal ah oo wax iska caabin u muuqata aysan ka qaadin Putin iyo maamulkiisa. Ingiriiska ayaa ballan qaaday inuu difaaci doono dalka Sweden haddii dalkaasi lagu soo qaado duulaan weerar iyadoo ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson iyo haweeneyda hogaamisa dalka Sweden Magdalena Andersson ay dabcan heshiis amni ku kala saxiixdeen meel ka yara baxsan magaalada caasimadda u ah dalkaas ee Sweden iyo Finland waxay ka fikirayaan inay ku biiraan NATO kadib duulaankii Ruushka ee Ukraine bishii Febraayo 24-keeda. Johnson ayaa mar dambe la filayaa inuu sameeyo ballanqaad difaac oo la mid ah Finland. So, welcome all, and it's a pleasure for me to welcome the Prime Minister, Boris Johnson, to Sweden, and particularly to Harpsund. I'm very happy to have you here. And our countries have strong ties, and I value our cooperation and close relations. And there is a mutual desire to deepen our cooperation, not at least on foreign security and defense policy. heshiisku wuxuu xoojin doonaa difaaca waqooyiga Yurub marka loo eego hanjabaadaha soo cusboonaaday. Johnson ayaa ku yiri hadal uu soo saaray isagoo raaciyay waa calaamad muujinaysa damaanad qaad jiri doonta weligeed taasi oo ka dhaxayn doonta quruumaha yaga. kuwaani ma aha kala fogaansho gaaban oo joogsi ah laakiin waa ballanqaad muddo dheer ah oo lagu xoojinayo xiriirka military iyo xasiloonida caalamiga ah iyo xoojinta difaaca Yurub ee jiilasha soo socda. ayuu ku yiri fariinta uu soo saaray hogaamiyaha dalka Ingiriiska. And I look forward to continuing our close cooperation and our bilateral relations, but also on robust actions to put pressure on Russia and in support of Ukraine. So please, Boris, the floor is yours. Well, thank you very much, Prime Minister Andersson. Thank you, Magdalena, and thank you for having me your absolutely beautiful Harpsund retreat. Breathtaking and great to be back in Sweden and great to see you again. This week many of us have been paying tribute to the brave men and women who secured victory and peace in Europe 77 years ago. And so it's a sad irony that we've been forced to discuss how best to fortify our shared defences against the empty conceit of a 21st century tyrant. When Europe celebrated VE Day in 1945, a victory that was, of course, in no small part ensured by the heroism of the Russian people, we hoped that peace on our continent would endure. Well, Putin's bloodthirsty campaign against a sovereign nation has put an end to that hope. And we face a new reality, but one that we face together. Ingiriisku wuxuu horay ugu sugnaa agaga badda Baltica oo ay la socdaan ciidamada wada jirka ee duulaanka kuwaasi oo ka kooban 10 wadan oo waqooyiga Yurub ah. boqortooyada Ingiriiska, Sweden, Finland, Denmark, Estonia, Iceland, Latvia, Lithuania, Netherlands iyo Norway. sanadkii 2017 Sweden iyo Finland waxay ku biireen xoogagga falcelinta degdega ee militariga ee Ingiriisku hogaamiye kaasi oo loogu talagalay inuu noqdo mid dabacsan oo ka dhaqso badan isbahaysiga weyn ee NATO. waxay isticmaashaa heerarka NATO iyo caqiidada si ay ula shaqeyso NATO, qaramada midoobe ama isbahaysiga kale ee caalamiga ah si wada jir ah oo dhameystiran ayay u wada shaqeeyaan tan iyo 2018. ciidamadu waxay qabteen tiro dhoolatus military ah oo dabcan ay ku muujinayeen si madax bannaan iyaga oo kaashanaya isbahaysiga NATO.